هاي صومها الحمد لله. ما شاء الله شيخ إسحاق لا يبرك اليوم وحديثي 10 كيكوات حديثك قريه وهريه كتابك 40 وكهذا لي نية أي كهذا إنما الأعمال بالنيات أي كهذا كعمل وربا ونية ويان هذا waxay isku doonaynaa bal inaan in yar aniguna bal aan ku sheego iskuul baad dhigataan ardaydu waxay u badan yihiin ardayda iskuullada ama hoose dhexe ha noqdaan ama dugsi sare ha noqdaan dowli private cid walba meel walba waa leeyihiin magaalada maasha allah waa ka wada timaadeen dowladan waxaa la yidhahdaa dowlatu almacrifa ayaa la yidhahdaa waana machad bilaasha oo aanu idin furnay niyada haddaba xadiiskaas uu sheegaya waxaa ka mid ah iskuulka marka aad tegayso qofka iskuulku dhigtaa maantana dowladda baa idin socotaa alxamdulilah ilaahay wuu idin waafajiyey iskuulka marka aad tegayso waa inaad u tagtaa ilaahay dartii iyo niyo saalixa soo maaha ha u tegin inaad iskuulka wax soo dhigato oo keliya ilaahay dartii u tag iskuulka casarkaagan aad buusinaya xadiiskii koowaad baad maanta qaatay kii labaadna uu idiin raaciyey sheekhu waa inaad markaad iskuulka tagto inanta ku xigta ta kale ta saddexaad aad tiraahdaa walaalayaal markaale aynu diinteena daraasaynay ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala inoo fudaydiyey inoona sakhiray inaynu isugu nimaadno ansaaru dacwa iyo ehelkii sameeyey ilaahay horta ha barakeeyo waxa weeyaan runtii waxay ummadda ugu talagaleen inay ummadda caawiyaan ilaahayna ha caawiyo qofka ummadda caawiya ilaahay baa caawinaya haddaynu intaa kaga gudubno maalmahan casharadii baa inoo socday hoose idinkoo markaa laba heer isugu yaro jira maanta waxaa inoo yimid sheekh aadan baa inoo yimid aadan nookiya waa injineerada waa magaalada farsamo yaqaanada moobilada ka shaqeeya sheekhoodii ayaa inoo yimid moobilku ma baranayna halkan laakiin maanta waxaynu ku baranaynaa inaynu markaa bal uu macallinku ina siiyo macallinka ayaa daabacay oo alifay maaragtay kutubtan aad dhigataan markaa macallinku maadaamuu yahay macallinkii kutubtan iska lahaa bal qaabku ugu talagalay in loo fahmo waa inaad furaha heshaa markaa macallinku wuxuu ina siinayaa furaha anigana halkan waxaa ii fadhiya ardaydii kale ee macadka sugaysay idinkuna waxaad tihiin ardaydii doonaysay in ay macadka iyaguna u dallacaan marka insha allahu tacaala weli arday baa dibadda joogta fasalki wayna qaadi la'yahay insha allahu tacaala laakiin waxba khayr bay noqon doontaa sababta maanta waxaan ugu talagalay laba leefal baad ahaydeen leefal sii hooseeyey iyo leefal dhexe baad ahaydeen labadiina leefalba waxaan ugu talagalay horta in macallinku maanta uu isu kan xidho min bilow ilaa dhammaad idin siiyo saacad ayaa lagu akhriyi karaya qofka haddii niyad ka tahay oo ay niyadda ka soo go'do waxa weeyaan qofku saacad ayuu maaragtay ku akhriyi karaa kitaabka qur-aanka marka ilaa inta kitaabkii la akhriyayey iyo wixii oo dhan ayaa insha allahu tacaala maanta bal macallinka idin siin doonaa markaa sheekh aadan baan kusoo dhaweynayaa innagu waxay nahay macrifa laba macrifa saddex baan nahay inagu macrifa saddex waxayna sugaya macrifa laba oo loo bilaabi doono insha allahu tacaala dhowaan ayuu sheekh yuusuf alkawnayn aan uga bilaabi doono insha allahu tacaala waxaa kaloo iyaguna fariin soo dirtay xaafadda falluujo la yidhaahdo falluujo iyo sheekh cumar iyo biibsiga iyo xaafadahaasoo dhan waxay yidhahdeen annagana hanaloo yimaado iyagana insha allahu tacaala waynu u bilaabaynaa marka waa laydin wada bilaabi doonaa insha allah wixii macluumaada xagga dambead ka siin doonaa horta aan macallin sheekh aadan ku soo dhoweeyo marka waka insha allahu tacaala waa nin kala baxay asalaamu calaykum